boqorka dalka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud ayaa soo saaray amar boqortooyo oo xilkii dhaxalka boqortooyada kaga xayibinayay Amir Maxamed bin Naif isla markaana ku magacaabay dhaxal suge cusub oo ah inankiisa Amir Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis dhaxal sugii hore Amir Maxamed bin Naif oo u dhalay boqorkii hore Naif bin Cabdilcasiis ayuu maanta laga qaaday xilka dhaxal sugaha ayaa waxa uu sii ahaan doonaa xogeenka ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha halka uu dhaxal sugaha cusub Amir Maxamed bin Salmaan oo u dhalay boqorka xilligan xilka haya uu sii ahaan doono xogeenka ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka difaaca waana talaabo loo arko in boqor Salmaan bin Cabdilcasiis uu doonayo in wiilkiisa uu ka dhaxlo xilka isagoo markii uu qabsaday xilka boqortooyada kala daadiyay xilalkii hayeen dhammaan raggii waaweynaa ee Ilma Cabdilcasiis isla markaana awoodii ku soo koobay dhalinyaradii ay sii dhaleen xilligan oo ay xiisado kala duwan ka taagan yihiin dalka ayaa boqor Salmaan bin Cabdilcasiis waxa uu awoodii dalka ku wareejinayaa inankiisa Amir Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis oo ay muddooyinkii u dambeeyay si weyn u hadalhaysay warbaahinta dunida ammaan fara badan ay u jeediyeen madaxweynayaasha dalalka reer galbeedku waana talaabo loo arko in boqor Salmaan uu xilkiisa kaga dhigi doono dhawaan kuna wareejin doono wiilkiisa si inta uu nool yahay uu u hubsado in inankiisii uu boqor ka yahay waddanka boqortooyada Sacuudiga waana talaabo loo arko inay tahay inqilaab labaad oo boqor Salmaan ku sameeyay nidaamkii xukun ee boqortooyadaasi ay ku soo jirtay muddadii 100 sano ahayd ee ay soo jirtay